السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنالك مركز السود واضح أدي هذا أمهات سنتين أرميه ترافل بانك هو مدحوين ترام وسور رجي وحنقنا هاي الصومالية إن كجرتي ودمضة ذاتك أول شيء أما باسبور كودا وطين أمريكان كي مادان لود دي لكن وركتدا مدحوين ترام وسور صاري أفرتي بشي جون waxaa ku qornayd in dadka immediate family-ga oo isku dhow ama isdalay ama isqaba oo isku dacwoonaya in immigrant visa sida IR1 iyo CR iyo sidoo kale CR1 iyo IR2 CR2 iyo waliba IR5 oo la cadeeyo ama cadeymo cad u keensada in ay xiriir leeyihiin qoyskaasi DNA-na lagu cadeeyo in loo ogolaanayo inay Mareykanka yimaadaan sidaas darteed marka waxaa jirtay maalmihii u dambeeyay soo baxayay inay jireen dad fara badan oo loo diidayay viisayaashii ama lamaana isqabo oo isku dacwoonayay ama dad isdhalay ama dad immediate family ah oo dad isku dhow qoys ah in safaaradaha Kenya iyo Ethiopia ay ka soo baxayeen maalmihii u dambeeyay in viisihii loo diiday loona sababeeyay in wareegtadii madaxweyne Trump uu soo saaray oo travel bank ah ee dhammaanba dadkaasina baasaboor Soomaaliya ay wateen oo Soomaali ay ahaayeen in travel bankaasi uu qusaynayo haddaba Cabdiraxmaan ayaa qadka ku jira oo aan wareysi la yeelan doona laakiin qoyskiisa oo qaar ka mid ah Nairobi jooga loo dacwoonayay ayaa waraaqdan waxaa la soo siiyay maalmo ka hor oo la leeyahay viisihiinii waa la idin diiday marka waraaqdan qoraalka ku qoran aan rabaa wax yar inaan idin la wadaago bal si aad u fahantaan ujeedada ama sababta loogu diiday viisaha qoyskan waxaa ku qoran marka hore Embassy of the United States Nairobi Kenya inay ka soo baxday immigrant visa ineligible qofkan inuusan u qalmin immigrant visa iyadoo loo codsanayo qodobka 212F ee ku jira national and waa Immigration and Nationality Act oo ku jira qodobkaasi marka waxay leeyihiin waraaqdan waxay muhiimadeedu tahay inaan idila socodsiino oo qunsuliyadda ay sarfiiska qunsuliyadda ee Nairobi uu helay amaba uu ogaaday inaadan u qalmina inaad heshaan immigrant visa iyadoo la eegayo qodobka 212F oo ku jira Immigration and Nationality Act iyadoo waliba la tixraacayo wareegtadii madaxweyne Trump uu soo saaray uu xadidayay in dadka ajnabiga ah ay wadanka Mareykanka soo galaan si loo ilaaliyo in Mareykanka loogana ilaaliyo argagixisada wadanka dibadiisa ka imaanaysa iyadoo sidoo kalena dadka kale ee qatarta ku ah ammaanka qaranka iyo badqabka qatarna u keeni kara ama qatar ku ah badqabka dadweynaha Mareykanka marka maanta go'aankan waxa uu yahay in aadan racfaan ka qaadan karin sidaas ayaa ku qoran waraaqda oo aan halkan idin soo saari doono xitaa waxa leeyahay waa la idin diiday fiisihiinii racfaanna kama qaadan kartaan iyadoo marka arintaasina ay jirto ayaa waxa ay leeyihiin madaxweynaha wareegtadiisina la tixraacayo arintan ma jirto xitaa wax exception ah oo qofku uu racfaan ka qaadan karo waxana ay tahay in kiiskiina aan la siin karin xitaa exception oo uusan kiisaska kale uusan waxba uga duwanayn sidaas darteed waxa ku qoran consular office-ka ayaa qaybta hoose uga qoran marka waraaqdaasi ayaa loogu diiday qoyskan mana ahan qoyskan oo kaliya qoysas kale ama lamaane isqabo isku dacwoonayay ama dad isdhalay oo isku dacwoonayay maalmihii u dambeeyay arintaasi waa ay soo baxaysay haddaba Cabdiraxmaan oo qadka ku jira bal aan weydiiyo oo isagu qoyskan ehel la ah hadda waraaqda aan idin akhrinayay ee loogu diiday waraaqdanna ila wadaagay waliba anigoo ka reebi doono magaca iyo case numberka idinna wadaagi doono Cabdiraxmaan bal waxaan rabaa inaan weydiiyo Cabdiraxmaan waraaqdan goorma ayaa qoyska la soo siiyay kiiskanna ilaa intee muddo ah ayuu socday بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا علمي واره adiga iyo asxaabtaada iyo dhamaan dhageystayaasha iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee channelka ku xiranba waan salaamayaa salaamta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh علمي last week ayaa loo soo diray email ahaan ayay ugu soo direen probably waxaan u maleynayaa inay ahayd talaadadii hadda aan soo dhaafnay ayaa warqadda la soo siiyay oo loo soo diray oo ay ku cadeynayeen inay u diideen viisihii wax abiil ah ama racfaan aan aysan ka qaadan karin wato waxaad ii sheegtay dacwadan marxalado kala duwan inay soo martay goorma ayay bilaabatay ilaa iyo hadda oo waraaqdan toddobaadkii hore loo soo diray bal warbixin kooban naga sii
علمي وما سنتها مرة بعد كيس كان وقت بدن أيو قاتي قبلنا وحاول تعاوني هويدت أنت تعاوني قبلنا هو كان قارتي كبعد هو بوستي مارج فيزا وحلي هذا الله حريي المركب الله حريي هو قاتي اللي قال حريي وحياة هاي 2007 كذا لحدي وقعد اللي جوه سديد يتمصنوا وقت بدن بقاتي in badan buu soo socday laakiin waxaa la approve gareeyay 2010kii ayaa approvalka yeeshay markay la approve gareeyay ka bacdi waxa loo diray National Peace Center waqti badan bay ayaguna haysteen 2019 ayay waxay bilaabeen processkii inay soo xareeyo documentigii loo baahnaa passportkii gabadha ilmaha ay dhashay ilmaheedii odaygii qabay wixii oo dhan ayaa la xareeyay National Peace Center ayaa lagu xareeyay 2000kii ayay xareysnayd 2001kii sidaasoo kale weli National Peace Centerkii interview waxba umay soo dirin 2023gii ayay waxay u soo direen bishii May ayay waxay u soo direen 11keedii inay soo marto interview ka horna ay marto caafimaad familkaasu toddoba qof bay ka koobnaayeen caafimaad ayay mareen lacag hadii $3,500 u kacaysa caafimaad ayay ku mareen 6 bilood ayay ka aamusnaayeen caafimaadka marka mareen ka bacdi interviewgina ay mareen bishii 11 interview way mareen interview way ku baaseen caafimaadku way mareen oo ku soo baaseen waxay sugayeen 6 bilood markay dhamaatay ka bacdi haddana waxay u soo direen inay caafimaadka maadaama uu dhacay caafimaadku Nairobi waa 6 bilood caafimaadka waa maadaama uu dhacay inay haddana u soo diraan intuu sabta caafimaadkaas u dhicin 6 bilood hore intuu sadicin ayay warqad u soo direen ay leeyihiin caafimaadkiini waa ka dhiman wax ka yar 6 beri 6 beri haddaad caafimaadka ku soo martaan waxaan idin siin doonaa viisiina waddankana waa inaad 6 beri gudahooda Kenya aad uga baxdaan waraaqa oo email ayay u soo direen 6 bilood marka appointment u baahan tahay caafimaadku loo mari karin waqtina looma haynin sidaas ayuu marka 6 bilood ka bacdi appointment caafimaadka ayaa loo qabtay bil ama 2 bilood ka bacdi inay ahayd baan malaynayaa bay haddana caafimaadkii labaad ayay mareen oo ah lacag adiga $3,500 labaad oo la bixiyay maadaama ay dad badan ahaayeen caafimaadkii labaad markii ay mareen waa laga aamusay sanadkii 2024kii oo dhan safaaraddu umay soo jawaabin waxba looma soo dirin 2025 January 15keedii ayay haddana waxay dhaheen waa inaad soo dirtaan warqad aad leedihiin booking aad ku samaysanaysaan oo aad leedihiin diyaaraddan raaci lahaydeen meeshaad ku degi lahaydeen wixii oo dhan information yani Maraykanka adresska ku degi lahaydeen diyaaradda aad raaci lahaydeen booking soo sameeya laakiin ticketka goosanina inaad baxaysaan booking camal oo kale noo soo dira waraqaas wixii oo dhan baan u dirnay markii aan u dirnay sidii oo kale haddana way aamuseen wax dambe oo jawaabtii noogu xigtay waa warqadan hadda ay u soo direen oo ah uma qalataan Maraykanka waa tahay marka hore waxaad sheegtay gabadha oo da'yar in loo xareeyo kiiskan oo ay guursatay marka ilmaheedii ayaa loogu daray miyaa kiiska hadda iyada iyo ilmaheedii ayaa loo wada dacwoonayay kulli ilmaheeda iyo ayada iyo waxa dhan iyo odaygeediba waa la keeni lahaa kiiska ku jireen marka waa la approve gareeyo everything way mareen xitaa caafimaadkii way ku laabteen marka waxaa u dhinaa oo keliya in viisihii la siiyo oo ay soo safraan waxa u dhimay keliya in ay soo safraan oo viisaha la siiyo wax walba interviewga xataa way wada mareen ilmaha iyo ninku waa kulli waa passport Kenyaati waa Kenyaati ayada keliya oo heerka baa waxay haysataa passportka Soomaaliga marka saas awgeed baan u malaynayaa in ayada maadaama head of family ay ahayd in ayada awgeed loogu diiday laakiin ilmaha iyo odaguba waa Kenyaati waa passport Kenyaati haystaan waa tahay marka maxaa hadda qorsheynaysaa ma inaad lawyer la xiriirtaan maadaama la leeyahay kiiskan hadda wax abiila kama qaadan kartaan mise waxaad sugaysaan inta uu Trump meesha ka tagayo markaasi kadib ayaad isku dayi doontaan inaad abiil ka qaadataan cilmi waa mahadsantahay mar labaad horta meesha waxaa ku qoran racfaan kama qaadan kartaan arrintaasuna de hadday saas tahay waa arrin aad u adag laakiin
waxaa wadnaa ballatashiyo badan oo ah looyaro waxaa jira hadda statekan aan deganahay Minnesota looyaro joogaa jira looyaradaas horta bal inaan la xiriirno haddii arrinta ay wax ka qaban karaan iyo haddii aysan wax ka qaban karin laakiin waxay u egtahay haddii ay arrintu tahay amar madaxweyne oo ah madaxweynaha amar ka soo baxay oo ah waxaan in baan la saaray waxaan malaynayaa inay looyarka laftigiisa ay ku adkaan karto oo aan sugi doono xilliga ay maaragtay ama maxkamadaha hadda dacwooyinka ku jira ama dacwooyinka ay ku guulaystaan ama administration kale oo bedelo uu yimaado ama madaxweynaha laftigiisaba uu arrintaa uu wax ka bedelo haddii maaragtay meelo dad badan oo noocaas oo kale ah oo dadkoodii saas oo kale baan loo saaray oo inta community baan nahay la is aruursado arrintaa dowladda loogaga dacwoodo waa tahay aad iyo aad u mahadsantahay xitaa waxaan kula talin lahaa in xildhibaanad ilhaan aad la xiriirtaan iyo sidoo kale senatarkiin oo kale iyadana inay idin caawisaan laga yaabaa maadaama hadda qoyskan ay wax kasta u dhammaadeen oo inay waddanka u soo safraan ay ahayd iyadana sidoo kale waa idin caawinaysaa cabdiraxmaan aad iyo aad u mahadsantahay oo kaaga mahad celinaya waraysiga baraad aad iyo aad baa u mahadsantahay cilmi adigana iyo sida dadweynaha dhegeysanaya dhammaantood baan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam thank you